وخميستي ميل هالكاسي يسوي تاجن أو حسي maalinta garsoorka Soomaaliya wax loogu yeeray 14 daqiiqadood ayuu hadlayay markuu 7 daqiiqadood iyo 50 second hadlayay wax 8 daqiiqadood ku dhow muddo 4 daqiiqadood wuxuu ka hadlayay arrintan uu ku sheegay saamaxaad iyo cafis iyo waxaan loo joogin 60 buu ka bilaabay dad goboleed gobonnimadoodu bay keeneen waa la qadiyay oo khaladka waxa la saxay buu yiri 6 sanadood kadib garo waxa lagu saxayaa maxay Xaaji Ibrahim Cigaal Ibrahim bisal laga dhigay kaanama ummadda ay ka maqnaayeen xeel caynkaas ah ama waxay tabanayeen ay waxa ahaayeen gobonnimadooda siistay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo siyaro fudud ayaa wuxuu isaga yiri afis baan weydiisanayaa isla markaana jabhadihii dagaalamayay waxa laga doonayaa inay cudurdaar bixiyaan oo ay dadka afis weydiistaan iyo waxaynkaas isagoo markaas uu ka soo noqday Itoobiya oo la sheegay inay ku kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ilaa imika xukuumadda Soomaaliland wax wara laga haynin oo ka soo baxay annaguna inta aanu sugeynay bal inay wax soo yeedhaan oo ay wax ka sii iftiimiyaan waxa sabab ka dhacay laakiin tii aanay ilaa imika dhicin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wixii ka dhacay Soomaaliland ilaa Ingiriiskii markan uu leeyay gobonnimo la qaatay oo waa la midoobay oo waa la siimido afkiisa ama soo maraysa Soomaaliland gobolada waqooyi 60 gobolada waqooyi ma xoroobin Soomaaliland ba xorowday Soomaaliland ba ay israaceen Soomaaliya laakiin tii uu ka xargoonaya uu ka xishoonaya inuu afkiisa soo mariyo ninkaas maxaad weydiisanaya waa taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxa la yiraahdo waa kuwii dhageerta halka galay Maxamed Siyaad Barre halkan muu iman Ali Samatar halkan muu iman halkan xooggii dalka wixii loo oran jiray oo qaybihii oo dhan la soo wada qaaday ayaa dhageerta geystay dadka waxa lagu sigtoo lagu dhawaaday in dadka la buufiyo oo ay sida ku suulaan magaalada Hargeysa dad may shahiidin magaaladu way shahiiday sidii khalabja ay u shahiiday oo Iraaqa markuu Saddam kiimikada ku buufiyay ayaa Hargeysa u shahiiday taasuu leeyahay waxaan weydiisanaynaa saamaxaad ma soconayso waxa soconaya dhagar dagaal oo la galay xasuuq la galay meel ka dhac lagu sameeyay bani aadamnimada in maxkamadeedii la sameeyo way ag joogan Cabdiraxmaan Guulwada halka ku qudbadeynayay inuu fadhiya laga yaaba haddaanu fadhiina markuu ruuxu la qadaynaya bar hadda tusaale yar baan siinaya Cabdiraxmaan Guulwada gudoomiyaha ku-xigeenkii gudidii wada hadalada ayuu ahaa afkiisu ka qirtuur xaq way mutaysteen in la xasuuqo xaq baanay u lahaayeen maaha wax laga sheegay wax lagu eedeynaya ma haysaga yiri uu bedelay wuxuu ku bedelay nin dalxal leeyahay oo leeyahay waa professor reerkiisa waxa uu yaqaan hadaad naxday jiilaan qoladaasina professor dalxay u taqaana shingaani buu ka hadlayay wada halka marto oo Cabdilaahi Suldaan Tima Caday Farmaajo si uu Tima Caday isu marmaray oo bixiyay ayaa wuxuu yiri xaq uma lehe waxa xaq u leh Qaasim Hilowle iyo Dr. Raajis iyo Dr. Raafi iyo naxariistii jarnay Ilaahay ka wada waraabiyo Tima Cadoon halka kuma dilin isma oran ku dil xataa Yuusuf Xaajaadan buu daweedna wuxuu yiri Qaasim Hilowle oo sameeyay astaantii qaranka ee Soomaaliya toosoo isku tiirsada waa reeshin gaanana uu leeyay waxay ku maahmaahan cimrigaaga oo dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa meer isku jira heestana wuxuu yahay tulid geelahoo dhacan baa toogasho ugu badheedhaane madalkeennii oo tegay baa nina dhagax u tuurayn bal halkeen la isaga keenaya seebu Qaasim isagoo maahmaada ku maahmaayi jiray uu tulid geela u garanaya nacaybka Soomaaliland baa isagana looga dhigay gudoomiye ku-xigeenka Farmaajo waa kaas nagu xuqin maaya anaga Itoobiya adeerkii markuu Itoobiya tagay 27 May 1988 Nazareth shadeeda meel soodari leeyahay isaga Mingisto biyo kulul ku dabaalanaya ayaanu Burciya Hargeysa soo galay taasoo wax ku qaadan la nidaamka afweynowmay qaalibneen Itoobiya maantana isagu ma qaalibna Itoobiya wax ka weyn waxa isaga ka dhaxeeya ayaa naga dhaxeeyo anagu jaalaan deganahay dad baa naga dhaxeeyo xuduud baa naga dhaxeeyo dhul baa naga dhaxeeyo amni baa naga dhaxeeya marka ifafaalaha muuqdana annaga kaga adkaanayna annaga abiye nagu xuqin maayo
jabhaduhu ha bixiyaan saamaxaad ha weydiistaan dadkana waxaa lagaa yidhi farmaajow taa dameero loo sheeg oo kuwa iyagu kuma jiraane dameerihiina loo sheeg faysal cumar mushtaag ayaa ninku yidhi nin fanaani ku yidhi xamar baan tegayaa markaasuu faysal wuxuu ku yidhi oo hargeysa maxabaal baad ka weyday ereyga talayaab kale waxa weeye xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani oo laba habeen hargeysa ka maqnaaba iyaguna waxay yidhahdeen waxaanu ku shiraynaa Addis Ababa iyagana waxaanu weydiinaynaa hargeysa iyo burco iyo boorame iyo laascaanood iyo berbere iyo ceergaaba iyo waddanka ma meel aad ku shirtaan baa ka weydeen mise waxa ogeydeen inaad ku kala kacaysaanoo tudhaalaabay ka ahayd hargeysa ceebtaasi ay raacine meel fog ay isla tagtaan hadalka waxaan ku soo ururinayaa Somaliland madax bannaanideedii way la soo noqotay waanay haysanaysaa waxa la yaalo waxayna dhex marayaan ma jiraan ereyada sarkaxaadiska ah ee aan xataa dabnaha dushooda saarnayn ee farmaajo ka soo yeedhayaana waxay kala fogeeyaan mooyaane wax la yaalo waxay daweynayaan ma jirto midnimaduna afka baarkeeda maaha midnimadu duunka hoose iyo dadka dareen ku jira oo walaalnimo weeye waa wax soo noolaan kara waqti qaadanaya Soomaali baana dhex taala ee maaha wax labadeenu kaliya dhex taala hadalka waxaan ku soo ururinayaa dadka Soomaaliyeed dibad iskuma sooraan dadka Soomaaliyeed meel kuma kala maqnaa adoo maanta wixii ciidan lagu tababaray gadageeyay gado aad ka dhalatay ku weeraraya adigoo maanta ardaydii Garowe leh hal soo qaado imtixaanka ha ku galaan xamar iyadoo loogeey dhuusamareeb inta dawladooda ka dhisan gaalkacyo cadaadiyo labada ka dhisan dhuusamareeb dhexdeeda intaasoo dhami iyadoo taagan tahay oo ay suuxsan yihiin Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inaad maanta anaga noo baaqdo tiraa Soomaalinimo iyo midnimo idinku baaqaya wax laga xishoodo weeye waxaan ka qaadanayna maaha wax ka maraya maaha mar dambana ha ku celinin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh